السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay injineer cabdicasiis cabdulaahi cabdiraxmaan. waxaanu maanta hore usii wadi doonaa insha allah tacaala casharadeeni taxanaha ee barashada cilmiga ethical hackinka ama barashada anshaxa ah ee sidii loo jabiyo kombiyuutarada ama systemka ama networka sida loo dhexgalo. ujeedka ugu weyn ama hadafka ugu weyn ee casharadani aan idinkugu soo gudbinayo waxaa waaye educational purpose, kaliya inaad wax barataan oo aan kala faa'iidaysano. marka anoo injineer cabdicasiis ayaa casharadani horey idinkugu sii wadaayo. waxaanu baran doonaa maanta insha allah tacaala wadooyinka la qaado si uu kugu suuro galo mishinkaada. waxaa jiro wadooyin la qaada, ayaa jiro faces, wejiyo la mara ayaa jiro. wejiga koowaad waxaa lagu magacaabaa reconnaissance ayaa la dhahaa. wejigani waxaa aruurinaysaa warbixinada publica ah ama warbixinada caadiga ah ee ku saabsan systemka ama kambaniga ama shirkadda aarati inaa u dhacdid networkeeda. laba hab ayaa loo aruuriyaa. habna waa hab active ah, habna waa hab inactive ah. habka activeka waxaa waaye in aad shirkadii si toos ah ina macluumaadkeeda u raadisid, oo hab oo direct ah ina u raadisid. habkan inactiveka ahna waxaa waaye in macluumaadka shirkadda aad ka raadisid social mediaha, googleka, youtube-ka, يعني meelahaas inaad ka raadisid warbixinteeda, websiteska inaad ka baartid adoo warbixintaas aruurinaa. wadadan marka waa faceka koowaad ee la qaado oo ah first time inaad suubiso macluumaad inaad aruurisid wixii la heli karo. waxaa jiro wada labaad. wadadaas labaad waxaa lagu magacaabaa scanning ayaa lahaa. wadadani waxaa isticmaali doontaa tools, ayaa isticmaali doontaa qalabaad, ayaa isticmaali doontaa. waxyaalaha qalabaadka isticmaali doonta waxaa kamid ah operating system aa isticmaali doontaa. horey aan casharadeena aan ugu soo qaadanay sida loogu duuban linkiga hoose aan indhigay oo lagu magacaabo Kali Linux. sidoo kale Parrot OS aa isticmaali kartaa. waxay kaa saacidayaan operating systemkan in aad toolska, waayo way ku dhex dhisan yihiin inaad isticmaasho si fudud. toolska isticmaalaysa waxaa kamid ah HPing oo kale isticmaali kartaa, Mavas oo kaleeta isticmaali kartaa. sidoo kaleetana vulnerabilitieska ku ogaanaysa, vulnerability scanners isticmaalaysa tools oo lagu ogaado vulnerabilityga meelaha uu daciifka ka yahay systemkan. marka wadadani si toos ah ayaa gacanta waxaa la gashay systemkii baaridiisii, ma fahantay? marka casharo badan oo ku saabsan scanning faceka oo soo qaadan, waxaan ka qaadan HPing ka qaadanay. haddaa youtube-keena ka baarto way heli doontaaba insha allah tacaala hadduu ilaahay yiraahdo. sidoo kale Wireshark aan aragnay oo analyzing tool asagana. okay, sidoo kaleeto wadada saddexaad waxaa waaye in aad gaining access, in aad u dhacdid. waa halka ethical hackinka uu ka dhaco waaye, sababtoo ah waxaa soo ogaatay vulnerabilitieska soo ogaatay meelaha uu ka daciifka uu ka yahay. sidoo kale waxaa soo ogaatay bot scanners oo dhan iyo waxyaalihii oo dhan soo ogaatay. marka haddadan waxaa la rabaa inaad lanjigreyso ama inaad toos weerarkaada inaad u suubisid. marka habkaani waxaa adeegsan doontaa ayadana tools kaleeto oo ay ka mid yihiin fission oo kaleeto inaad adeegsan kartid. tools kala gedisan ayaa adeegsanaysaa, ma fahantay? si uu kugu suuro galo inaad u dhacdo systemkan. wejiga saddexaad la rabo inaad adeegsatid waxaa waaye in aad bartaada joogtid waaye. maintaining access aa lahaa inaad halkaada ku nagaatid. halkaada habka ugu nagaanay maxaa? marka halkaada waxaa ugu nagaanaysaa inaad isku daydo in aad computerkan ownershipka milkiliyadiisa inaad adila la wareegtid ayaa isku dayaysaa, adoo isku ekeysiinayo shaqaalaha shirkadda. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa keyloggers ayaa isticmaali kartaa iyo backdoors ayaa isticmaali kartaa. habka ugu dambeeya waxaa waaye in aad bartaada aad ku sugnaatid adoon waxba tirtirin, waxba dheelidgareynin. adoon waxba tirtirin waxaan ka wadaa dokumentiyada shirkadda ee ma tirtiraysid, laakiin waxaad tirtiraysaa applicationadii adiga aa u isticmaashay inaad halkan ku imaado oo dhan ayaa tirtiraysaa. sababtoo ah waxay dhalin karaan shaki ayay dhalin karaan.
wax walba oo ku cusub oo adiga aad soo gelisay waa delete gareynaysaa, passwordada iyo username ayaa haysataa, si toos ayaa u galaysaa adoo iska dhigay dadkii maalin walba geli jiray systemkan adoo isku ekeysiinaya. markaas waxa adkaanayso in lagu ogaado ayaa adkaanayso. laakiin haddii applicationadii ama waxyaalihii aad ku shubtay computerka ay ku jiraan, taas waxay dhalinaysaa shaki ayay dhalinaysaa, si fudud ayaana lagu ogaanayaa, banaankana lagu tuuraya. marka waxaa suubinaysaa cadeymahaada oo dhan ayaa tirtiraysaa. habkan ayaa waxaa loo magacaabaa governance tracks ayaa la lahaa, ma fahantay? marka 5taas wadaa la qaadaa. kheyr badan aan rajeynaya. waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal, si ay dhiirigelin iigu noqoto in aad YouTube-ka subscribe saartaan, sababtoo ah taas waxay ii suuragelinaysaa inaan casharada in badiyo, inaan ka caajisin oo mar walba in soo duubo. marka waa codsi, videoga like saar, YouTube-kana subscribe saar, labadaas suubi. haddii aad share gareyn kartidna share garey oo la wadaag asxaabtaada. kheyr badan aan rajeynaya. casharadani si free oo lacag la'aan ah ayaan idinkugu soo gudbinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.